waxaan leenahay madaxweyne haddaad hurdidda kac haddaad fadhididda istaag haddaad taagan tahayna dhaqaaq dalku wuxuu ku jiraa mugdi buu ku jiraa loomana adkaysan karo lamana maxay ahaytay lamana indhaana lagama qarsan karo waxa la xidhay maalin dhaweydnin la yiraahdo Axmed Cadi 10 sano lagu gobolka Sanaag buu ka soo jeeday markii la xidhayna waxa joogay Sanaag cirgaaba joogay waxaan xusuustay maxkamaddii geelle marka 10 sano noqday subhanallah maxkamaddii geelle aan xusuustay detention-kii baan xusuustay waxaan xusuustay xabsigii xamar iyo kii 20 jiro iyo aadan yabaal meel la yiraahdo odagaygu ku xiraan jiray wixii bay isku hay wada sawiray dawladdii detention-kii bay soo celisay maxkamaddii geelle soo noqotay sida nin shacab loo saaraa maxkamad military 10 sano muxuu yahay muxuu galay dawladdu nabadgelyada haday iyadu maxay ahayd dawaqinayso oo dadka kicinayso malaha la rabo jabhada dambe iyo inay maxay ahayd imikaba way samaysmeen la sii kordhinayo taas waa mawduuc gooniya oo ha cadaysta laakiin dawladdu ha ka dayso gobolka Sanaag culayskan faraha badan iyo kicintan faraha badan ee dadkooda lagu hayo iyo caburinta ninkaana waxaan leenahay madaxweyne adiguna malaha dambi anagu ninka kuma ogin laakiin adigana magac ku noqday waan cafeeyay sida buur madowba tiri waa u fadhinaa ninkaas hadaan gobolka Sanaag nahay in la soo daayo xorriyadiisa lagu soo celiyo xaaska ah mujaahidka ahaa maxay ahayd arrimaha uu maxay ahayd arrimahan qof ibni aadani galin buu ninkaasi dalka u galay walaalkiis oo jidkooya galay buu toogtay oo kan uu quuri waayay inuu dalka maxay ahayd dhibaato ku keeno walaalkiis uu toogtay hooyadii aabihii dhalay oo dalka uu toogtay isaga dhaawac ku noqday صدر عروره بوليه ninka waa in si dhaqsale loo soo daayay waxaan kale oo ka hadlayaa guud ahaan dalka waxa haysta aafo la yiraahdo sixir barar dadkii way liitaan dadkii way yaaban yihiin dadkii waa muraara dilaacsan yihiin dawladdu waa inay sixir bararka wax ka qabato hadii kale waa la isfoobi doonaa xeerka uu maray madaxweynuhu isagu meel buu iskaga xidhan yahay war ma hayo kuwa wasiirada ahayna malaha iyaguna laftoodu war ma hayaan dadka shacabka iyo dadka maxay ahayd u dhuun daloolaan askartu ilaalinay ayaa og dhibaatada dalka ka jirta dalka dhibaato ayaa ka jira sixir barara dawladdu waa inay wax ka qabataa dhibaatooyinka kale ee dalka ka jira waxa kamid ah Hargeysa magaalo madaxdiya wada la maro malaha wadada madaxtooyada iyo u dhaxeeya maxay ahayd iyo baarlamaanka kaliya baa jirta ilaa dawladda hoose ay halka tagta wala madaxweynuhu taaquru markuu soo maraabaan isir suurtagal maaha waxyaabahan soo aragnay inuu maxay tahay indhaha ka qarsado golihii deegaanka ee la doortay ee wadanka loo doortay waxaan leenahay dalka wax ka qabta oo wadooyinka maxay ahayd wax ka qabta xashiishka ka daran xashiishka ayaa ka daran xashiish baa haysta dalka maxay ahayd shuban bacruuriyan maxay ahayd ku dhacay waxaasina waa xashiishii nadaafad dar dawladdii hoose miyaanu baafinaade tolo miyaanu baafinaa maxay ahayd ragii la doortay maayarada ah war waxaad dadka waxa inaa wax u qabataan baad meesha u tagteen oo u dhaarateen gawaari baa maxay tahay shirkadaha la siiyay xashiishka shirkaduhu qofkii aan lacag siin hadii neef baqtiya la dhigo masaajidka maxay tahay gidaarkiisa haddaan lacag la siin ka qaadi maayaan jirkii tacliinta ayaa jira oo gobolka Sool ka soo jeeda iyo Sanaagba u dhashay labadaba wasiiraa jira ma garanayno sababtaas waxa ku dhacday waanu ka xunahay 100% waana cambaaraynayna arrinka waxaan leeyahay aruurta la soo lugeeyay ee gidaarada Hargeysa meehanaabaya markay wasiirka u galaan wasiirku kacayo oo maxay tahay ka baxayo wasiirku xigeenkuna maxay tahay hadal kale ugu darayo oo maxay tahay aan munaasib ahayn meehanaabaya Hargeysa waa in la siiyo waxbarashadooda ama lacag hala bixiyo dawladdu ha bixiso
وسكولرشيب كهبحسو أما إن مدودي أي جيستين هسوعليان مدحضو إحنا وقنا هيدات كان ودن كدجن مساكين تاهي إنا نبهيلين بقى سكولرشيب نمهلا عاومة كلا نمهلا هو هرجيسي شوغاني لكن أنت شعرك وين أنت الحياة هاي طيب الماء سكولرشيب كجيسة كرتا أي قيف ستا مركا وين عرورتا طبعا كعرورة دولة حلس كسرتو نقاله لقى بحيو سكولرشيب كودي أي هلانين هديك عليه وحيلاتها هذا قبل لك اللي فراك بحياني إن سنة قبل سنة لو رنتي لنا فراك سبحان راقي عرورته لا صغري وقوة سكولرشيب كما كهرتو كأرض اللي بس تصيب الرو فربضن يلقوي بدن باكل على عرورتها وحنو لنا هي مدحويني عرورتها عرور بعد لا ذهي سيد عرورتها ذو قدام